Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Nabad wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka wehelka STN oo toddobaad waliba maalmaha Sabtida iyo Axadda aad si toos ah uga daawataan muuqbaahiyaha STN wuxuuna si toos ah idinkaga imaanayaa xarunteena dhexe aynu ku leenahay magaalada Nairobi. Maalin walba oo Axad ah barnaamijka waxaan kusoo qaadanaa qodobo aad u xiiso badan isla markaana aynu isleenahay dareen gooni ah ay u leedahay qodobada kala duwan ee markaasi bulshada ka dhex taagan. waxaana maanta guud ahaanba barnaamijka diiradda aynu ku saari doonaa qodobka ku aadan doorashooyinka ee la rajeynayo in dhawaan ay ka dhacaan wadanka Soomaaliya ee lagu soo dooran doono xukuumad cusub isla markaana lagu soo dhisi doono ama lagu dooran doono madaxweyne cusub oo ay Soomaaliya yeelato iyadoona bulshada Soomaaliyeed ay aragtiyo kala duwan ka qabaan hogaamiyaha la dooran doono iyo sida ay jecel yihiin inuu u soo baxo. waxaa maanta barnaamijka ila falanqeyn doona isla markaana arrimahaasi u dhuunduleela oo stuudiyaha igula sugan Cabdullaahi Ismaaciil Biixi oo ah dhakhtar Soomaaliyeed isla markaana in badan baa dalka Soomaaliya ku sugnaa wax badan kala socda xaaladda dalka. Cabdisalaan Yarow Axmed oo isaguna ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada isla markaana isha sida gooniga ugu haya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka madaxweynenimada ee dhawaan ka dhici doonta magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa stuudiyaha igula sugan Cabdiraxmaan Nuur Cali oo loo yaqaan ambassador si naxariis leh isla markaana ah nin u dhuundaleela arrimaha siyaasadda falanqeyntooda. waxaana ambassador Cabdiraxmaan si naxariis leh uu yahay nin dhalinyaro ah isla markaana aad ugu dhuundaleela dhanka iyo arrimaha siyaasadda. guud ahaan tiimba waan idinku soo dhaweynayaa xarunta dhexe STN gaar ahaan barnaamijka wehelka STN. ودبعاً وإنك كما تعلنين سيدات برامج كأنه أجيبتين إن نقل قيب قشان داود يال برامج كدبعاً سؤاشة وجوه رئيسة أما داود ياشة مركان قد كأوفرنو أي دبعاً نقل قيب قادن كران وحي تحي هجامي عين كه هي الصومالية كحبون إن لو دور تسي ودلك وهجاميو قدرت كتلفون كدبعاً فرصة وإذن سين دونا يدونا مرتدا عن واحد بدن إسلاف لنقين دونا هسا هاتي مرك هره صوماليا تاريخه كل دون أي صوم مرت مرك الله أيوة حاجة دور شوين كتاريخها سي سيدا udhaceen iyo waliba sida Soomaaliya ay ugu soo najaxday dhanka doorashooyinka iyo horumaradii kala duwanaayo ay ka sameysay ilaa iyo dawladda haatan ugu dambeeysa ee Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka ka sii degaya. waxaan u gudbeynaa warbixin arrimahaasi ku saabsan. marka la eego taariikhda dawladnimo ee Soomaaliya waa mid heerar kala duwan soo martay isla markaana aan lagu soo koobi karin hal warbixin iyo barnaamij toona iyadoona Soomaaliya ay soo martay nidaam dawladeed oo xusuustiisu ay dad badan la ilmeeyaan marka uu maqalkooda soo gaaro. ummadda Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol islaam ah ayaa waxa ay yihiin kuwa nabadda jecel inkastoo cadawgu uu dabin buuxa u dhigay dawladdii ay muddada dheer ku hoos noolaayeen. doorashadii ugu dambeysay ee Soomaaliya waxa ay dhacday 80-maadkii xilligii dawladdii kacaanka waxay ahayd inay dhacdo doorasho guud oo dadku ay ka qayb galaan sanadkii 2012 mar kale hase ahaatee maysan suuragelin. baarlamaanadii ugu dambeeyay ee dalka ayaa waxaa inta badan soo xula odayaal dhaqameed goobo kala duwan la isugu geeyo iyadoona uusan dalka ka jirin dastuur rasmi ah oo ay afti u qaadeen shacabka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaa soo maray madaxweynayaal kala duwan oo qaarkood si weyn loogu xusuusto in ay la yimaadeen xilligii ay talada hayeen waxqabad aad u baaxad weyn isla markaana wax weyn u tara ummadda Soomaaliyeed. haddii aynu ku hormarno 1 Luulyo 1960 ilaa iyo 10 Juun 1967 waxaa dalka madaxweyne ka ahaa Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde Allah u raxmade oo ka socday xisbiga SYL oo ahaa xisbi si weyn ay u taageersanayeen gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed. 10 Juun 1967 ilaa iyo 15 Oktoobar 1969 waxaa dalka madaxweyne ka ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyadoona markii dambe uu toogtay mid ka mid ah ilaaladiisa. dawladdii kacaanka 21 Oktoobar 1969 ilaa iyo 1 Luulyo 1976 waxaa dalka gacanta ku hayay Maxamed Siyaad Barre oo ahaa madaxii u sareeyay ciidamadii militariga ahaa ee afgambiga ku qabsaday talada Soomaaliya. 1 Luulyo 1976 ilaa iyo 26 Janaayo 1991 Maxamed Siyaad Barre waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya isagoona matalayay xisbiga lagu magacaabo SRSP xilligiisii hanti wadaaga.
waxaana dalka ka qarxay 91kii dagaal sokeeye ka oo talada loogu tuuray allaha u naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barre. janaayo 1991 ilaa iyo juun 1995 cali mahdi maxamed ayaa dalka madaxweyne ka noqday iyadoona la dhisay dowlad ku meel gaar ah. hase ahaatee dowladii cali mahdi maxamed ayaanan shaqeynin kadib markii uu dagaal toos ah kala hor yimid ururkii lagu magacaabayay USC ee uu horboodayay maxamed faarax caydiid. 15kii juun 1995 ilaa iyo 27kii Agoosto 2000 xilligaas dalka wax dowlad ah kama jirin ilaa laga soo gaaro shirkii Carta oo lagu soo dhisay xukuumad ku meel gaar ah oo xilligaasi loo soo gaabinayay TNG. 27kii Agoosto 2000 ilaa iyo 14kii Oktoobar 2014 waxaa xilka hayay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu hayay dowlad ku meel gaar ah iyadoona dowladiisu ay la kulantay caqabado kala duwan taa oo sababtay in ugu dambeyn ay xilkeeda ku dhameysato iyadoo dalka aysan wax badan ka qaban. 14kii Oktoobar 2004 ilaa iyo 29kii Diseembar 2008 Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu madaxweyne ka ahaa dowladii ku meel gaarka ahayd ee dalka Soomaaliya. hase ahaatee ugu dambeyn xilkiisii waa uu iska casilay. 31 janaayo 2009 ilaa iyo 20kii Agoosto 2012 waxaa dalka madaxweyne ka noqday madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyadoona dowladiisu ay ahayd mid ku meel gaar ah iyagoona matalayay ARS dowlad midnimo qaran. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 16 Sebteembar 2012 ilaa iyo hadda xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. koontada 30% haweenka imiga la sii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waad ogtihiin hore uma dhicin jirin koontadan noocan oo kala 30% in haweenka la siiyo oo helaan kuraasta baarlamaanka. waxaan isleeyahay fikirkayga in aad isbedel weyn lala kulmi doono wadanku gali doono maadaama hooyadu ay tahay laf dhabarta ummadda Soomaaliyeed ama bulshooyinka caalamka oo dhan. kursigaas maxamed cabdi xayir maareye waxaan sheegayaa in uu cadeynayaa inuu si xaq ah Soomaaliya waxaa ugu dambeysay in xilli hore la qabto doorasho ay ka qayb galaan dadweynaha. xilligii dowladii hanti wadaag ah ayayna dad badan dib u go'onayaan marka ay maqlaan sheekooyinka ku saabsan doorashooyinka. inkastoo doorashooyin dadweyne la qorsheeyay in la qabto 2012 haddana ma aysan suuragelin daruufo badan oo dalka ka jiray. dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya wuxuu xusayaa habka doorashada asxaabta waxaana la doonayaa in si cadaalad ah loo simo dadka Soomaaliyeed oo aan loo fiirin qabaa'ilka ay ka soo jeedaan. waqtigii uu jiray maamulka madaniga ahaa ka hor inta uusan xukunka qabsan golihii sare ee kacaanka 1969 waxaa jiray tiro xisbiyo siyaasadeed waxaana inta badan laga xasuusan karaa xisbiyadaas hore ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL loo soo gaabiyo ahaana urur siyaasadeedkii ugu horeeyay ee dalka lana filayay. golihii sare ee kacaanka uuna hogaaminayay Siyaad Barre wuxuu mamnuucay dhammaan xisbiyadii isagoo hiigsanayay nidaamka hanti wadaaga cilmiyeysan. dadka Soomaaliyeed waxay degan Afrika jacalkiisa bari. kadib dagaalkii sokeeye ee 1990kii dalka Soomaaliya ka qarxay isla markaana talada looga tuuray madaxweyne Siyaad Barre in yar oo ka haray xisbiyadii faraha badnaa waxay isugu tageen dhanka waqooyi. inta soo hartayna waxay u kala jabeen kooxo maleeshiyaad ah oo koonfurta Soomaaliya ku baahsan. kadib isku dayo dhowr ah oo dib loogu heshiisiinayay ummadda Soomaaliyeed ayaana lagu guuleysan iyadoona shirarkaasi lagu qabtay gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya. waxaa sanadkii 2004 la aasaasay dowladda federaalka ku meel gaarka ah ee loo soo gaabiyo TFG oo loo idmay in dalka u sameyso dastuur cusub ahaadana mid loo dhan yahay.
sanadkii 2011 waxaa waqti kordhin loo sameeyay madaxweynihii xilligaasi iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa ilaa iyo Agosto 2012 intaa kadibna waxaa la qorsheeyay inay diyaariyaan doorashooyin cusub tubraac loogu dhameystirayay kumeel gaarka. madaxda Soomaalida waxay ku kulmeen gobolka Bari gaar ahaan magaalada Garowe bishii Febraayo 2012 waxaana looga hadlay qorshihii looga bixi lahaa kumeel gaarnimada. kulanka waxaa isugu yimid goob joogayaal caalami ah, madaxda Soomaalida, madaxweynihii dawladii kumeel gaarka ahayd ee xilligaasi mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Cali, gudoomiyihii baarlamaankii xilligaasi Shariif Xasan, madaxweynihii Puntland ee xilligaasi Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, madaxweynihii Galmudug ee xilligaasi Maxamed Aadan Caalin iyo Khaliif Cabdiqaadir oo matalayay ahlu sunnah wal jameeca. waxaana lagu heshiiyay in la sameeyo xubno baarlamaan oo ka kooban 2 aqal, aqalka sare oo ka koobnaanaya 54 halka aqalka hoose uu ka koobnaanayo 225. 30% waxaa loo qorsheeyay dumarka. in madaxweynaha lagu doorto doorasho dastuuri ah, baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha waxaa magacaabaya madaxweynaha, kadibna wuxuu soo dhisayaa golaha dawladda. doorashadii madaxweynaha ee baarlamaaniga ahayd waxaa la qabtay Sebtembar 2012 taasoo lagu doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Soomaaliya haatan waxay isku diyaarinaysaa inay hirgeliso doorashooyin kala duwan, waxaana maamul goboleedyada dalka ay intooda badan soo gudbiyeen xubnaha u matalaya aqalka hoose iyo aqalka sare ee xukuumadda madaxweynaheeda dhawaan la dooran doono. hase yeeshee waxaa noo fushay 36 xildhibaan, waxaa inoo harsan 2. waxaa maanta la doortay oo 36 ku noqday xildhibaan Amiin Jeesow. hase yeeshee waxaan aad ugu faraxsanahay qaabka doorashada ee u dhacday. waxaa magaciisii mar labaadna aan sugaynaa inaan dhammayno 2 xubnood ee soo socota. xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya haatan ka dhisan ayaa waxa ay walwal badan ka muujinayaan in doorashada Soomaaliya ay koox gaar ah afduubato, balse su'aasha taagan ayaa waxa ay tahay maadaama musharaxiin badan ay u taagan yihiin qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya, kuwa oo intooda badan haatan talada dalka haya, haba ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda haatan jirta. doorashada Soomaaliya ma noqon doontaa mid xaq iyo xalaal ah. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa marar badan uu warbaahinta u sheegay in isaga shakhsi ahaan uu yahay musharax, hase ahaatee uusan doonayn inuu musuqmaasuq ku sameeyo doorashooyinka qaran ee dhawaan Soomaaliya ka qabsoomi doona. daawadayaal intaasi aynu kaga gudubno warbixintaasi aynu ku soo koobaynay taariikhda doorasho ee dalka Soomaaliya, waxaana goondhiga barnaamijka maanta uu yahay xaaladda doorasho ee Soomaaliya haatan ka dhici doonta 8 bishan aynu ku guda jirno ee Febraayo iyo waxa laga filan karo doorashadaasi iyo waliba marka loo eego indheer garadka bulshada qaybeeda kala duwan sida ay u arkaan doorashooyinkaasi. waxaa stuudiyaha gula sugan sida horeyba idinku sheegay Cabdullaahi Ismaaciil Biixi, Cabdisalaan Yarow Axmed iyo Cabdiraxmaan Nuur Cali oo saddexdooduba dabcan arrimahan aad ugu dhuunduleela isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay si gaar ah isha uga hayay. markale waa idin soo dhaweynayaa haddii aan ku hormaro Cabdullaahi Ismaaciil Biixi, Soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa qabashada doorashada madaxweyne 8 Febraayo ay dhacaysaa, in badan doorashooyinka dib u dhac ayaa ku yimid. doorashooyinkan marka ugu horeysa iyo sida bulshada ay u arkaan markaad ku hormarto. bismillaahir rahmaanir rahiim, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin. aad waa mahadsantahay Muslax. waxaa sharaf noo inaan maanta aan joogno TV-ga STN. sidoo kale waxaan salaamayaa akhyaarta ay kala galgalayso barnaamijka, waa barnaamij aad u muhiimsan in ummadda Soomaaliyeed loo falanqeeyo. haddaan ku hormaro qodobkaad tiri, dabcan 2000 doorashada waxaa la sugaya inay dhacdo Soomaaliya 2016
ma dhicin nasiib daro shacabka Soomaaliyeed rajo fiican iyo expectation-kood aad buu u sareeyay nasiib daro arrimo technical oo marka ay sida dowladda hadda xilka haysay sheegaysay ama baarlamaanka qaabka lagu dooranayo ahaa qaab aad u adkaa oo weli aan dhicin adduunka doorasho la mid ah sida baarlamaanka soo lagu soo xulay iyo doorashada Soomaaliya sida ku dhacayso baa sababtay in isdabajitaan dheer iyo isdabagal badan uu dhaco taasoo aakhir sababtay in doorashada 2017 ay soo gasho shacabka Soomaaliyeed aad bay ugu rajo weyn inay arkaan dowlad sax ah la doortay inkastoo ay keenay codeynayeen oo nasiib darro ay tahay haddana si uu matalayso taasoo ah hiddiilo wanaagsan waqti badan baa la isku daba jeetamay Soomaaliya ku meel gaar fara badan waxyaalo badan soo martay laakiin hadda wajiyadii hore wajiga cusub uu yar dhamaa markii la eego si isku bedelayso shacabka Soomaaliga aad bay ugu rajo qabeen in doorasho xaalad wadanka ka dhacdo weli way ku rajo weeyeen sida muuqato nin walba oo yar ama weyn ama dhexe siyaasada Soomaaliya u fiirinaya because of dhibaatadii iyo cararkii iyo siyaasad xumadii baa badatay marka waxa hadda nin walba uu danaynayaa in Soomaaliya oo doorasho xalaal ka dhacdo degto dowladaha dariska ay arkaan in wadanka isbedel ka jiro taasoo sahlayso in dowladaha dariska xitaa ay ku soo degdegeen oo sidii loola macaamili jiray hadda aan la macaamilin marka hidilo fiican muuqato rajada Soomaaliya aad bay u sareysaa doorashada waxaan rajaynaynaa waqtiga hadda la astay inaan dib uga dhicin musharaxiin aad u badan baa sharaxan oo 24 musharax ah mid baa hadda isxasilay oo Salato Injineer Ali Xuseen yiraahdo isxasilay soo dhahayo waxaan u tanaasulay maadaama dadka sharaxan aad u badan yihiin marka waa rajada aad u fiican tahay waa tahay Dr. Cabdullaahi Ismaaciil Bixi aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Nuur Cali ambassador sin xariis leh isla su'aasha sidaan ku weydiiyo doorashooyinka in badan dib u dhaceen 8 Febraayo hadda loo astay in la qabto bulshada Soomaaliyeed isay u arkaan doorashooyinkan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan u mahadcelinayaa TV-ga Star TV Star Television Network gaar ahaan barnaamijkiisa wehelka daadihinayso walaalkay maslax waxaan halkan ka salaamayaa walaalahay barnaamijka iga la qayb qaadanaya markaan su'aasha u gudo galo markii la fiiriyo Soomaaliya hididilada ay qabto iyo ma aragtay dadka shacabka waxa ka guuxaya aragti ka dugan baan qabaa waayo Soomaaliya waxay soo martay marxalad kala guur ah oo 24 sano ilaa 26 sano aysan dawlad arag dadka in la midka ah ee 26 ka sano dawladda aanan arag waxaad u maleynaysaa inay noqdeen dad aad u barakacay oo ma aragtay dhibaatooyin kala duwan soo maray laakiin alxamdulillah annaga aan taas ka caymano dalkeenii haddaad aragto oo ma aragtay qaabka uu ku sii silqayay iyo dadkoodiisii u socdaan aanan loo malayn karin iyo horumarka ay sameynayaan dal weligiis burbur soo maray qaasatan dadku waxay hadal hayaan doorashadan dib u dhacaysa mar walba doorashada dib u dhacaysa inkastoo dadku qaar ay ku saleynayaan inay tahay caqabado xagga dawladda dhankeeda ka imaanaysa haddana waxaa jirta isbedel aanan weligeed Soomaaliya ka dhicin doorashadii ugu horeysay ee laba muwaadin xil haya markaa madax ah ee Soomaaliya waxaan u maleynayaa 42 sano ka hor 43 sano ka hor inay dalka ka dhacday taasoo ahayd madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya mudane Allahu naxariiste Aadan Cabdulla Cusmaan Daar iyo ra'iisul wasaarihii markaa dawladii Aadan Cabdullana ka ahaa noqdayna madaxweynihii labaad Cabdirashiid Cali Sharmaarke haatan aniga waxa ii muuqdo waxay tahay hididiilo ka dugan tan shacabka ay haystaan taasoo ah doorashadii 42 sano ka hor aanan dhicin inay hadda Soomaaliya ka dhacayso taasoo maantayna noqotay doorasho weligeed aanan dib loo arag qaabka ay u dhacayso marka hididiilo qurxoon baa aniga meesha iga muuqanaysa waxaan rajaynayaa 8 February bishan hadda aan ku jirno in insha Allah ta'ala aysan dib u dhac ku imaan dalkana uu hanto kii hagi lahaa waa tahay Cabdisalaam Yarow Axmed oo isaguna arrimaha bulshada aad u falanqeeya barnaamijka nagala qayb galaya Cabdisalaam doorashada in badan baaqatay 8 Febraayo waa maalinka lagu kala bixi lahaa sida loo asteeyay bulshada hadaad fiirisay iyo waxa ay ka qabaan doorashooyinkan
بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفع وزدنا علما والحمد لله على كل حال. مصلح هذا وما صنعه فقط على STN قلت وخدنا العلم يا صاحبي عبد الله عبد الرحمن الرمش في السوق القري قلت يا عبد سؤال بدعة دورها يا صاوي وهداد اكتو waxaa la filayay madaxweyne cusub in la doorto 10 bishii tobanaad 2012 sanadka aan soo dhaafnay maadaama madaxweynaha hadda xilkiisa dhamaaday uu xafiiska yimid 2012 bishii tobanaad loona asteeyey 10 bishii tobanaad 2012 inuu xafiiska ka tago haddana dhowr arrin ayaa sababaysa in ay gaari waayaan ama ay suurtagelin waayaan ballanqaadkii ahaa in xilligaas xafiiska ay baneeyaan ama madaxweyne cusub uu yimaado ama doorasho xor xalaal ah qof iyo cod ahna ay ka dhacdo dadka kow dib u dhaca tirada badan ee imaanaya bilihii lasoo dhaafay waxaa sabab u ah habacsanaanta maamul xumada hadaf la-aanta dowladda soomaaliya haysato hadda taas ayaa sabab ah kow arrinka labaad sababay waxaa weeyaan qaabka doorashada qaabka ay tahay doorashada doorashooyinka caalamka ka dhaco ama soomaaliya ka dhici jiray waxaa weeyaan doorasho dadkay ka qaybgalayaan oo one man one vote ah qof iyo cod ah ama doorasho parliamentarian ah oo baarlamaanka uu soo dooranayo madaxweynaha baarlamaankana dad kooban ay keenaan laakiin doorashadan haddaad eegto waa doorasho hybrid system ah laba aqal la soo dhisayo labada aqal la soo dhisayana ay soo saarayaan dad committee ah ama koox matalaysa shacabka 51 qof ah 51 qof waxay dooranaysaa xildhibaan ama aqalka hoose ama aqalka sare ah labada aqal mid 56 ah iyo 275 ah ayaa waxay sameynayaan aqalka shacabka aqalkaas oo loogu talagalay inuu doorto madaxweynaha haddaad eegto nidaamka waa nidaam iska daba wareeg ah aada u dheer dad badan taladiisa ay leeyihiin oday dhaqameedyo badan beesha caalamka ummadda soomaaliyeed siyaasadda waddanka ka jirta gudaha waxyaabo badan ayaa la falgelaya haddaad eegto taas ayaa sababayso in uu dib u sii dhaco markasto arrinka saddexaad ee sababaya waxaa weeyaan istaraatiijiye ay isticmaalayaan xisbiga hadda talada hayo oo u arko caqabad adag dadka tartamayo ama qaabka soomaalida waxay u doonayaan inay mar labaad kusoo laabtaan waa la dhihi karaa iyadana taas ayaa sababaysa inay doorashada marka dib u dhacdo waayo hadday qaban lahayn bishii tobanaad sanadkii lasoo dhaafay ayagoo aanan aada ugu diyaargaroobin ama aanan ogeyn xildhibaanada cusub ee lasoo dooranaya cidda ay doonayaan ama waxa ay rabaan isbedelka siyaasadeed ee hadda waddanka ka jiro waxaad ayadana dhihi kartaa waxay doonayaan inay xafiiska kusoo laabtaan sidaas awgeed xukuumadda ayaa mas-uulka ah in doorashada dib ay usii sii dhacdo arrinka saddexaad ee ayadana dib usii dhigaya waxaa weeyaan oo aan aada muhiim ay u tahay inaan isla garanno beesha caalamka beesha caalamka waxay noqotay qabiil ka mid ah qabiilada soomaaliya aadna uga awood badan shacabka soomaaliyeed oo u yeerinayo ummadda soomaaliyeed qofka ay dooran lahaayeen xilliga ay dooran lahaayeen iyo waxa ay ku dooran lahaayeen hadaf la-aanta jirto ee soomaalida haysato maamul xumada iyo qorshe xumada dowladda iyo dadka shacabka soomaaliya haysata ayaa iyadana fursad waxay siisay beesha caalamka inay farageliso doorashooyinkeena afartaas arrimood ayaa sabab u ah inay doorashada ku dhacdo ummadda soomaaliyeed haddaan usoo laabta rajada ay ka qabto ama siday u aragto doorashada ummadda soomaaliyeed waa dad haddii dhan laga eego aada u rajo badan weligoodna aanan rajo dhigin marxalad kasto caqabad kasto duruuf kasta lasoo daristo waa dad aada ugu adkaysto mar kastana rajo fiican ka qabo isbedel haddaad eegto madaxweyne markuu yimaado haddii xitaa aanan la garanin siyaasaddiisa madaxweynaha yimid xafiiska waxaa lagu soo dhaweeyaa sacab iyo mashxarad waxaa laga muujiyaa aragti wanaagsan waxaa laga muujiyaa ra'yi wanaagsan waxaa laga muujiyaa rabitaan wanaagsan sababta waxaa weeyaan dadka soomaalida waa dad aada u rajo badan mar kastana isbedel bay doonayaan xasan sheekh maxamed maalintu xafiiska imaanayay madaxweynaha hadda xafiiska joogo
aad baa loo soo dhaweeyay cid garanaysa ma jirin laakiin waxay ku caddeynaysaa dadka soomaalida inay dad aad u rajo badan yihiin isbeddelka ay doonayaan marka si kastaba ha noqotee doorashada ka socota dalka soomaaliya hadda bishan aynu ku jirno February 8 la rajeynaya inay dhacdo dadka soomaaliya rajo badan bay ka muujinayaan isbeddel wanaagsan wax wanaagsan inay ka soo baxaan loo caqabado badan ay jiraan haddana waxaa la rajeynayaa isbeddel wanaagsan inuu dhaco waa tahay aad baad u mahadsan tahay dabcan markaad fiiriso Soomaaliya 20 meeyo ruuxa waxay u taagan yihiin in kursiga madaxweynaha ay qabtaan waxaa la sheegaa intooda badan ninka ugu yar in 2 baasaboor uu wato ajnabi ah dawladda hadda xilka kasii dhamaanaya Xasan Sheekh Maxamed waxaa lagu eedeeyay in musuqmaasuq uu jiro oo dawladda wax istaba marinteeda ay badneed ma lagu kalsoonaan karaa qof 2 baasaboor wato in Soomaaliya marka la hoggaankeeda loo dhiibo waxaan ka hormariyaa dhakhtarka bismillah mar labaad aad baa mahadsan tahay maslax waxaan loo yaqaan double citizenshipka ama qofka inuu laba sharci uu wato wadankiisii oo kasoo jeeday native ahaan iyo wadan immigrant ahaan uu ku tagay oo sharci uu ka qaatay dabcan waxay ku xiran tahay constitution wadanku yaalo sidoo u qeexayo waxaan maanta meeshaan kala saari karmaan waxay ku xiran tahay sharciga wadanku yaalo iyo constitutionka uu qoran muxuu ka qabaa qofka double citizenshipka ah inuu wadanka soo sharaxi karo marka aniga waxay la tahay dib loo eego dastuurka dib loo eego review lagu suubiyo taasoo markaa sahlayso in dadkii la kala saaro warheed qofkan baasaboorka ajnabiga wato wadanka ma ku aamini karna hadduu dastuurku qoray yes hadduuna qabin okay in la kala saaro yiraahdo okay adiga citizen wadanka la tahay wadankii wuxuu u baahan yahay qof muwaadin wadanka ku koray wadanka joogay weli joogo xaaladda ka warhayo sida wax u socdaan la socdo aydan waa goonideed marka waxay ku xiran tahay mar walba baarlamaanka Soomaaliya soo uu arko dastuurka sidoo qodobada si fiican loo aqriyo hadduu dastuurku xitaa uu qabyo yahay dabcan dastuurku uu dhameystiran laakiin qabyo waa dastuurka dan in si fiican loo dhaxgalo dadka individualka ay soo sharaxay baasaboorada wadamada kala wato maxay saameyn ku lahan karaan wadanka dibadda waxay noqdaan ma waxa cabsi looga qabaa sirtii wadanka iyo maadaama ninka wadanka ku sareeyay uu yahay oo wadanka ilaalinayay uu yahay waxa laga cabsi qabaa inuu wadankii uu sirihiisii iyo waxyaalihi marxaladda wadanka asaasiga inuu gudbiyo marka waan ku laabanaya waxa ku xiran tahay dastuurka wuxuu qorayo in dib loo eego si loo ogaado qofkan wuxuu yahay waa tahay ambassador aan siinaya su'aashaasi qof baasaboor 2 wadan oo ajnabi wata ma midka Soomaaliga sidee loogu aamini karaa in Soomaaliya uu hogaamiyo taasi waxaa ku habboon in dib u raac loo sameeyo dastuurka Soomaaliya waxa uu qabo waayo dastuurka Soomaaliya hadduu qeexayo ama ay tahay inuu ogol yahay qofka labada dal ee sharciga ka haysta kan uu u dhashay iyo kan uu qaxootiga ku tagay ama laga yaabe kan uu kale uu haysto inay tahay mid reerkiisa qayb ka mid ah ay ka soo jeedaan marka taa waxay ku habboon tahay baarlamaankan cusub ee kii 10aad uu yahay in ay ma aragtay fiiriyaan oo ayaga ay dib u raac ku sameeyaan oo ay ka munaaqashoodaan qaabka ay ma aragtay ay uga hadli karaan in ay ninkaasi xilka u dhiiban karaan iyo in aysan u dhiiban karin waayo waxaad aragtaa Soomaaliya hadda 24ka isu soo sharaxday iyo muwaadinka iscazilay shalay iscazilay 23ka kale waxaan u maleynayaa average ahaan markii la wada fiiriyo hal inuusan xataa ka soo bixin dhammaan ay wada yihiin dad double citizenship ah ama 2 sharciyadeed wata marka taas waxay ku habboon tahay in ay dastuurka Soomaaliya uu qeexayo hadduusan qeexaynina la dhameystiro waa dastuurka laftirkiisa hadda qabyo ku sii socdo dastuurka markii la dhameystiro waxa loo arki karaa muxuu ka qabaa dastuurka hadduu dastuurka ogol yahay waa sida ayaga ay gaar u tahay markaas ay u lahaysiiyaan qaabkii uu ogolaysiiyeen haddii kaleetana qofkan waxa loo fiirinayaa muwaadinimadiisa hadduu double wato ee muwaadin uu yahay ee markaasi danta dalka iyo diinta iyo dadka uu ka shaqeynayo waxaan u maleynayaa inuu macno gaara soo kordhinayo laakiin hadduu markaa looga cabsi qabo inuu siyaasadii dalka ama xeer hoosaadkii dalka u yeelay inuu dad kala shisheeyay la wadaago inay markaa caqabad ku keeni karto
waa tahay ustaad cabdisalaan yaro maxaad ku daraysaa? horta sida dastuurka uu qabo qofka muwaadinka Soomaaliyeed ama dastuurka Soomaaliya aad buu u ogolaanayaa in qofka double citizenship uu yeesho, laakiin maadaama dastuurka uu yahay qabyo qoraal weli aanan la dhammaystirin qodob qeexaya ma jirto madaxweynaha u tartamaya dalka inuu noqdo qof muwaadin Soomaaliyeed aanan haysan dhalasho kale kuma jirto dastuurka ma dhammaystirno. laakiin haddaad eegto caalamka aad bay u yartahay qaliil weeyaan in la helo qof double citizenship haysto ama laba dhalasho haysto inuu tartamaya inuu madax ka noqdo ama madaxweyne uu ka noqdo wadamada ka mid ah ma dhacdo inta badan. tusaale waxaan kugu soo qaadanayaa wadankan Kenya dhowr bilood ka hor waxaa loo tartamayay madaxa maxkamadda sare, gudoomiyaha maxkamadda sare. dad badan ayaa ka soo qayb galay oo muwaadiniin Kenya ah. waxaa ku jiray nin ka mid ah ninka ugu aqoonta badan dhanka sharciga ayaa ku jiray dadka u tartamayay positionkaas, laakiin waxa uu haystay dhalasho Mareykan ah iyo dhalasho Kenya labadaba. asagoo ah muwaadin Kenya takhasus aad u badan leh dhanka sharciga dadka aad uga horeeyay, haddana waxa weeyaan ninka Kenya uma talayo ICJ-da dood u dhaxayso Kenya iyo Soomaaliya dhanka badda waa ninka uma talaya hadda. ninka waa laga soo tagay dhaliilo badan iyo waxyaabo badan ayaa looga soo tagay, laakiin aniga waxaan isleeyahay waxa ugu weyn ee looga soo tagay inay tahay maadaama uu haysto laba dhalasho ee laba wadan, waliba wadan ka mid ah wadamada adduunka ugu faragelinta badan caalamka ayaan dhihi karaa. marka anaga dhibaatadana haysato waxaa weeyaan dadka ugu toogtaroon ama ugu dhaqdhaqaaqaroon u tartamayo xilka madaxweynenimada Soomaaliya waxa weeyaan dad ayagoo dhan qurba joog ah. boqolkiiba waxaan dhihi karnaa 99 dadka tartamaya waa dad qurba joog ah. ma haysano fursado badan, ma haysano xulasho badan. dadka kooban ee tartamayo dhammaantood waa qurba joog. marka haddii dastuurka lagu dari lahaa waxaa adkaan lahayd qof qurba joog ah laba dhalasho haysto inuu xilku isu soo taago. waxaa muhiim noqon lahayd inuu ka tanaasulo mid ka mid ah ama Soomaalinimada uu ka tanaasulo ama wadanka uu haysto uu ka tanaasulo. laakiin wixii dastuuri haddaysan ahayn dastuurka aysan ku qorneen qof kasta xaq buu leeyahay inuu tartamo hadduu muwaadin Soomaaliyeed uu yahay. waa tahay aad baad u mahadsan tahay. dabcan maamul goboleedyo kala duwan ee Soomaaliya ka jira ilaa iyo 5 maamul goboleed loo kala qaybiyay. maamul goboleed walba waxay dib u dabcan u soo dhisteen baarlamaanka iyaga ku matali lahaa. baarlamaan goorina waa ay sameysteen xarun kii dhaxana waa ay u soo doorteen kii maamul goboleedkan waa ay sameeyeen. maamul goboleedyada Soomaaliya hadda ka dhisan door intee laga ku yeelan karaan markaad eegto in ummadda Soomaaliyeed ay helaan hogaamiye ay ku qanacsan yihiin? waxaan dhihi karaa aniga maamulada goboleedyada Soomaaliyeed saameyn aad u weyn ku leeyihiin. waa meesha baarlamaanka laga soo xulay iyadoo hadda kuwaas lagu saleeyay state in baarlamaanka lagu soo xulo iyadoo wili ku sii basgareysan qabiilkii ama 4.5-kii. waxaan dhihi karaa waxaan hadda aragnaa in goboleedyada qaarkood isteedada in qaarkood ay shakhsiyaal ay wataan u sharaxan xilka madaxweynaha la kala taageerayo baarlamaan walba isteedku ka imaaday lagu bushkaranayo ama lagu wado inuu taageero musharaxaas. marka waxaan dhihi karaa influence guud ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya gobolada maamul goboleedyada Soomaaliya ka jiro aad u sareysa. weli waxaa muuqato madaxweynayaasha aniga madaxweyne ma dhihi kare waa sidaan u arko waa gudoomiyaal gobolo. waxaan dhihi karaa nin walba masab aad u sareeyo isdhiga si uu saameyn ugu yeesho doorashada Soomaaliya ka socoto. ama dhinac qabiil ha ahaato ama dhinac state uu ku soo galaamo waxaan uu ku soo kala ahaato dhinac walba ku soo gal. laakiin waxaa muuqato inuu aad saameyn weyn ugu leeyahay oo haddii amarkiisii waxaa moodaa xitaa central government-gii in awood ahaan uu wado inuu la siman yahay. waxaad arkaysaa caalamka Soomaaliya oo caalamka kala buubuurinayo state kala buubuurinayo kii Soomaaliga xoogaa si uu yeelaysan yahay. waxaad arkaysaa arrimihii central government-ga ay lahayd oo implementation program-ka central government-ga inay hirgeliso oo waxaad arkaysaa arrimihii state-ka isku qasiyay. marka state framework baana jirin nidaam quseeyo in ninka madaxweynaha ka gobolkaas xadidayo ma jiro.
dastuurkii waa qabyo marka farajaal oo waxaa jiro awoodihii oo aan si fiican loo kala saarin ninka madaxweynaha gobolka ee muxuu awood ku leeyahay musharax ma wadan karaa saameyn intuu nooc ku yeelan karaa marka waxaa jiro qastaan siyaasadeed oo aad u ballaaran oo xitaa shahashay in madaxweyne goboleedyada in dowladihii dariska ay u tagayaan leeyihiin musharaxaasaan wadana musharaxaasna la taageer heshiiskii doonaan ay galayaan heshiiskii ay galayaan taasoo ah mid xaq darre ah oo ayagoo gobol ee Soomaaliya gobol ka mid ah ama laba gobol saddex gobol isku tago Soomaaliya ka mid ah in heshiisyo caalami galayaan marka waxaa jira isku qas fara badan baa jiro dastuurkii waxyaalahan ma kala saarin marka maamul goboleedyada door fiican ku yeelan karaan in ummadda Soomaaliyeed ay helaan absolutely door fiican bay ku yeelan karaan haddii wadada saxda la qaado waa haddii madaxweynaha maamul goboleedkaas madaxweynaha ka ah madaxweynaha sheeganayo si kasta uu ku imaado si kasta lagu soo doorto hadduu yahay nin Soomaalida rabo uu garan karo uu fahmi karo wacyiga Soomaaliya hadda ka jiro wuxuu yahay saameyn aad u leh buu ku lahan karaa in Soomaaliya tilaabo hore u qaado ku lahan karaa in madaxweynaha daacad leh ku lahan karaa waa hadii dhinac wanaagsan laga eego laakiin hadduu isbaaradan taale iyo midkaan nijeclaysi iyo kana wataa socoto totally wax raje ah oo gobolada iyo sideedada Soomaaliya ka jiro xumaan wanaag u keenayaan male waa tahay ambassador haddii aan su'aashaas ku weydiiyo walaalkay ra'yi ka duwan baan qabaa qaabka uu asaga u dhaliilayo maamul goboleedyada dowladda way ra'yiga ka duwan aan qabo waxay tahay 1990 iyo kowdii Soomaaliya waxaa soo maray dagaalkaas oo ka dhacay dowladdii dhisnayna ahayd dowlad central ah ama Soomaaliya guud ahaan laga soo bilaabo cirifka Raas Kamboni ilaa Raas Casayr inay hal meel laga wada xukumayo arrimaheeda nuqulka siyaasadeed ama xagga madaxtinimada hadday markaa jiri lahayd systemkan federalismka ah oo ma aragtay hadda taagan maysan dhacdayn burburkii xilligaa dhacay waayo waxaan taa u leeyahay waxay tahay meesha lagu dagaalay haddii ay noqoto centralka ama ay noqoto qaybtaas gaarka ah waxaa badbaadi lahaa maamul goboleedyadii kale for example Muqdisho dagaal ka dhacay waxaa lagu heshiin waayay systemkii dowladnimada waxaa badbaadi lahaa Jubbaland waxaa badbaadi lahaa Koonfur Galbeed waxaa badbaadi lahaa Somaliland waxaa badbaadi lahaa Puntland waxaa badbaadi lahaa Galmudug dagaalku wuxuu ku koobnaan lahaa ama arrimaha siyaasadeed khilaafka ka jira wuxuu ku koobnaan lahaa central government ee Muqdisho ama Banaadir uu ku koobnaan lahaa haddii ay ka dhacdo sida tusaale ahaan Koonfur Galbeed oo kale wuxuu dagaalka ku koobnaan lahaa Koonfur Galbeed oo kale waayo dhalinta siyaasadeed iyo Soomaalida kale ee guud ahaan ee maamul goboleedyada ah waxaad arkaysaa inay ka badbaadi lahaayeen maanta dhibaatada hareysay ee saameysay taasoo keeni karta ama aan u arki kara inay tahay hal dowlad oo Raas Kamboni ilaa iyo Raas Casayr xukumaysa laakiin tan looga badbaadi karo haddii nuqul siyaasadeed lagu fahmi waayo centralka in ay ka badbaadayso qaybaha kale ee jaaniska haysta ee maamul goboleedyada laakiin haddii meesha saa fiirisid waxaad isleedahay systemka federaalka faa'iidada uu wato waa markii sida loo rabo loo isticmaalo way dhici kartaa caqabado inuu ka soo baxo caqabadahaas oo la dhihi karo waxaa meesha ku lumaya sharaftii iyo sumcaddii ee calanka Soomaaliga uu lahaa taasoo la ag dhigayo calanka kale ee maamul goboleedyada uu wato laakiin sida kale maamul ahaanta iyo administrationka ee dowladda markaas lahaan karto waxay kaga badbaadi kartaa ama ay gaar kaga noqon kartaa in maamul goboleedyada kale aysan dhibaato hareyn hadduu hadda maanta colaad ka jiro Puntland oo kale Galmudug maanta waxay ku noolaanayaan waxbarashadoodii nabadoodii siyaasadoodii way hagaagaysaa Koonfur Galbeed sidoo kale hadduu Somaliland dagaal ka jiro Muqdisho ma soo saameynayso waxay noqon lahayd meel kale xiran yani siyaasadda sida loo kala furfurana aad bay u fududaan lahayd laakiin dhibaatadii dhacday waxaan dhihi karaa waxaa horseeday waxay tahay iyadoo nuqulkii siyaasadeed hal meel iskugu jiray ee hal meel wada taagnaa taasina ay kaliftay dhibaatada hadda lagu jiro laakiin dad badan waxay isweydiinayaan federalism waxaa loogu talagalay dad kale dabcan kala luqad ah ama waa bulsho kala duwan oo wadan isugu timaaday ummadda Soomaaliyeed waa ummad isku jinsi ah isku luqad ah hal diin wada haysta sidee ku suuragelaysaa in federalism loo sameeyo waxay ku suuragelaysaa ummadan waxay noqotay ummad dhibaato 26 sano ku soo jirtay
sidee loo kala badbaadin karaa? marka koowaad waa in loo fekeraa haddii maantay muqdisho la isu haysto ninkii xukumi lahaa ama siyaasad ahaan ninkii madaxweyne ka noqon lahaa haddii la isku haysto, ama markii ay imaado aan ku xukumo siyaasadii ma aragtay wanaagsaneyd ee midnimada Soomaaliya horseedi lahayd aan ku keeno, markii maanta aan ku dhaho haddaad iga hor imaado waxa marka qasab noqonayso ama badbaado dhalin karta inaad gurigaaga soo xukunto, kayga aan soo xukumo, meel dhex aan iskugu imaano si meesha xal looga helo laguna badbaadiyo qof walbaba afkaarta gaarta uu aaminsan yahay, looguna badbaado dhaliilka siyaasadeed ee ka socda ee ah hadduu qansax qabto qurac ma xukumi karo, hadduu qurac qabtana qansax ma xukumi karo. taasay badbaado ku noqonaysaa oo lagu kala badbaadinaya. aad u mahadsan tahay ustaad Cabdisalaan Yarow Axmed. maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ka jira doorkay ku yeelan karaan rabitaanka bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan inay helaan hogaamiye rasmi ah oo dalka daacad u ah? su-aasha rasmiga taas ah runtii anaga federalism kama aynan hadlayn. su-aasheena waxay qusaysaa kaalinta ay ku yeelan karaan maamul goboleedyada doorashooyinka ka jira sanadkan dalka Soomaaliya. walow xildhibaanada ka socdo maamul goboleedyada lagu soo doortay qaabkii qabaaliga ahaa ama ma garanaysaa 4.5 haddana waxay noqon karaan kuwo ummadda Soomaaliyeed ka bixiyo dhibaatada iyo burburka ay ku jiraan, isbedel, horumar iyo amni u horseedo. sidoo kale waxay noqon karaan caqabad jirto oo aanan laga tilaabsan karin ummadana ku haya dhibaatada ay ku jiraan. tusaale waxaa ku ah haddii maamul goboleedku uu noqdo maamul goboleed kaasi shidaal qaato wadan daris nala ah ama wadamada arrimaha Soomaaliya farageliyo, hadduu noqdo maamul goboleedkaas wuxuu sababayaa burbur, wuxuu sababayaa in wax isbedel aysan dhicin. laakiin maamul goboleedka hadduu noqdo maamul goboleedyo ku heshiiyey isbedel siyaasadeed oo dhab ah oo wanaagsan, horumarna sababa, hadday ku heshiiyaan isbedel ay sameyn karaan. walow 4.5 lagu ay ku kala yimaadeen lana dhihi karo qabiil ahaan way ku kala duwan yihiin, laakiin Soomaali weeyaan dadkan waa dad Soomaaliyeed. danaha Soomaalina waa hal, rabitaanka Soomaalidana waa hal. haddii la dhaho hadday taas ku heshiiyaan wax wanaagsan bay noqonaysaa. laakiin hadday noqdaan dad lagu adeegto ay ku adeegtaan wadamada dariska ah iyo beesha caalamka, waxay noqonaysaa caqabad inteeda leeg. marka aniga waxaan ogahay waxaan dareensanahay wax kastoo jiro, caqabad kastoo jirto, in ummadda Soomaaliyeed gobol kastoo ay ka soo jeedo ama maamul kastoo ay ka soo jeedo inay ku midoobi karaan maanta isbedel siyaasadeed oo dhanka wanaagsan loo qaado. waa tahay aad u mahadsan tahay. daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka weelka STN oo si toos ah idinkaga imaanaya muqbaahiyaha STN xaruntiisa dhexe ee Nairobi. waxaana uga hadlaynaa doorashooyinka Soomaaliya iyo waliba hogaamiye ceenkee ah ayaa ku haboon in Soomaaliya uu hogaamiyo isla markaana loo doorto. daawadayaasha qadka telefoonka ayay soo beegsan karaan iyagoo dabcan su-aashaasi ra'yigooda ku cabiraya. su-aasha isweydiinta mudanna waxay tahay hogaamiye ceenkee ah ayaa ku haboon in Soomaaliya uu hogaamiyo. qadka telefoonka ee shaashada qaybteeda hoose ku qoran ayaad soo wici kartaa, anagoona kaa codsanayna marka barnaamijka aad soo wiceyso inaad ka fogaato aalada aad markaasi nagala socoto. waxaana kaa codsanaynaa sidoo kale goobaha buuqa iyo sawaxanka uu ka jiro inaad ka fogaato si fikirkaaga saliimka ah anaga iyo daawadayaasha banaanka idinka daawanayaba aan si toos ah u dhuuxno. dabcan barnaamijkana maanta waxaa marti iigu ah Cabdullaahi Ismaaciil Biixi oo isagu ah dhaqtar Soomaaliyeed, Cabdisalaan Yarow Axmed oo isaguna ah hogaamiye dhanka iyo u dhunduleela arrimaha falanqaynta arrimaha bulshada, sidoo kalena Cabdiraxmaan Nuur Cali oo isaguna ah nin dhalinyaro ah isla markaana arrimaha siyaasadda aad ugu dhunduleela isla markaana falanqeeya. saddexdooduba stuudiyaha ay martin ugu yihiin, waxaana daawadayaashu ay ra'yigooda nagala wadaagi karaan su-aasha ku aadan hogaamiye ceenkee ah ayaa ku haboon in Soomaaliya uu hogaamiyo. si anshax uu ku dheehan yahayna waan rajeynayaa in barnaamijka aad uga qayb gali doontaan. markaan su-aalaha ku laabano, Soomaaliya xisbiyaha hadda ka bilowday, waxaad moodaa in isbedel uu jiro dhanka siyaasadda. xisbiyada intooda badan waxay mucaarad ku yihiin dowladda oo isku ka midaysan yihiin. waxaa jirta xisbiya waxaa ku jirta 10 ruux oo kale oo musharaxiin madaxweyne wada ah. 10kaas ruux xisbiyada qaar Kenya markaan imaano kale ama wadamada kale caalamka, xisbi walba wuxuu isku gartaa ama ay ku tashtaan in hal qof uu hogaamiyo oo xilkaas u tartamo madaxweynenimada. Soomaaliya waxaad moodaa 10 ruux ee ku jira xisbiga
tobankooduba waxay u baahan yihiin in jagadaas ay qabtaan kursigiina hal ruux ka badan ma qaadi karo. maxay noqon kartaa in 10 ruux oo isku xisbi ah ay u tartamaan hal kursi? waa dhibaatada jirtay ka mid tahay. aniga qaasatan ma aaminsan xisbi Soomaaliya ka jira hadda saacadan la joogo. xisbiga markii la asaaso baarlamaan asaxiyo. xisbiga waa inuu tusuur ku cad yahay meeqa xisbiga loo baahan yahay, xisbiyada noocay lahaan doonaan, intee ka koobnaan doonaan, ma laba, ma saddex ba, ma afar ba, maxay ma hal ba. marka weli waxay la xiriirtaa dastuurka qabyada ah oo arrin la xiriirto markii dhinac u fiirisid. marka waa nasiib daro in 10 nin oo hal xisbi ka wax xisbi ahaan ama magacan xisbi sheeganaya inay 10 ka soo sharaxaan. taas waxaa laga rabaa in baarlamaanka Soomaaliya qodobada ama waxyaalaha dastuuriga ah oo rabo in la kala saaro bi ka mid tahay. dabcan way jirtaa hadda xisbiyo lagu magacaabay laakiin weli si sax ah u dhaqan gelin. waxay ku shaqeeyaan nidaamkooda baarlamaanka Soomaaliya ma ansixin miyuuna ansixinin weli waa arrinta la waay. 10 qof ama 5 qof intee meel tagaan magac soo bisto dhan xisbi baan nahay baarlamaan aan howlgelin dastuurka qodobadiisa dastuuriga ah oo quseeyo xisbiyada Soomaaliya noocay u ekaan doonaan ima muuqato. marka jahwareerka siyaasadeed oo fragile-ka jiro bay weli ka mid tahay waxyaalahaas noocaas ah. waxaan kula talin lahaa dadka noocaas ah in haddii xitaa xisbi subsanaya in qof ama hal qof isku matashaan si isqabsiga farad badnaa uu yiraahdo si isku kalsoonaantiina u korto. marka waxaan dhihi karaa weli waxaa jira caadifad ah anaan maxamed adiga madaxweyne rabtaa isku xisbi waan dad minis maxaa marka adduunka ma jirto inaan isku xisbi nahay dan aan kala socono haddana marka dhibaatada jirtay ka mid tahay. waa tahay aad baad u mahadsan tahay. dabcan waa idin siin doonaa hadduu eeba ka raali noqdo. waxaan taagannahay xilligii warka aan hawada gelin jirnay isla markaana Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warka inoo aqrinaya. warka dawadii dib ayaan isugu soo laaban doonaa hadduu eeba ka raali noqdo. daawadayaal haatanse aan u gudubno warkii caalamka iyo Cabdicasiis Axmed Barrow.